Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelka Saak Films oo uga barateen filimaan qaraaxa iyo musalsalo waxyaabo fara badan. Maanta waxaan kala hadli doonaa abis indhaweed in haystay oo bulshada aad beryahan ugu fara badnaa. Abiskaas oo ah CJ on Style oo beryahan dambe Soomaalidu aad ugu yaacday, halka Soomaali fara badanna ay lacag ka heshay iyo faa'iidooyin lacagoodii ay gashteen, halka kuwa kalena aysan wax faa'iido ah ka helin oo uu ku dhamaaday waqtigii uu shaqaynayay iyo waqtigii ay lacagta ku urursanayeen. Haddana waxaa socda weli abisyo fara badan oo CJ on Style iyo kuyaabo kale oo doonaya iyaguna inay lacagyo ka sameeyaan bulshada. Dadka ugu faraha badan ee sameeya ama gala ama markiiba isku tuura iyaga wareysan waxaa ugu horeeya Soomaalida, Bangladesh-ta, wadamada daciifka iska ah oo dowladahoodu aad u waaweyneyn, halka wadamada waaweyn Yurubta iyo Ameerika iyo wadamada Carabta aad ku waaweyn ayagu aysan gelin oo dad yar oo kooban ay ka galeen. Marka waxaan jeclahay inaad mar walba iska ilaalisaan abiskaas oo ah abis hore la iskugu dhacay, haddana mid kale oo la magaca oo isagii u eeg oo la qaaba oo laftirkiis nimankii kuwan shirkadii kuwan ama nimankii kuwan markii hore dadka ku dhacay ba haddana waxay soo cusboonaysiiyeen isagii oo ay ka dhigayaan mid kale oo dad kale ay wataan, laakiin maaha waa in laga feejignaadaa oo la iska ilaaliyaa. waliba abisyadu ma yara, way fara badan yihiin, kuwa fara badan oo kale baa jira oo dadka iyaguna lagu dhaco ama lagu eego. Hadda waxaa jira mid kale oo kan Cloud Source KXYZ oo ah isaguna mid bilaash marka hore ay ku leeyihiin lacag baa lagu siinayaa. Dunida ma jirto marka hore wax lagu leeyahay bilaash baa lagu siinayaa. Anigu waan tijaabiyay, waan eegay, dad fara badan way igu yiraahdeen lacag baan kala baxnay, lacag baan halkaa la marnay, lacag baa akoon noogu soo dhacday, laakiin anigu wax hubo aan weli ishada aan ku arkay ma aha. Maalinkii dhowr qof baan ka diiwaan geliyay, hadda 11 qof baa iska diiwaan geliyay. 11 qof maalinba waxba igu siiyaan, laakiin waxaan anigu hubo oo maanta aan lacag ku helayo ma aha, waxaan wax ka sugayana ma aha. Waxaan ogahay kaliya in loo samaystay in la booqdo oo iyagu ay lacag ku helaan. Waa abiskaas iyagu waxay kugu xirayaan shuruud, waxay kugu xirayaan 30 qof inaad keentid kaliya. 30 qof way ku leeyihiin baa lacagtu kaaga soconaysaa oo kaaga xiriiraysaa, maalin lacag baad ka helaysaa. Qofkuna markuu isdiiwaan geliyo oo aad linkigaaga u dirtid $10 baad ku helaysaa. Haddii aad linkigaaga u dirtid uusan furinna $2 baad ku helaysaa oo dadka u qaybisay soo mad garan. Marka waxay leeyihiin shaqo noocaas oo kala ah. Dunidana ma jirto wax bilaash lagu shaqeeyo ama bilaash lagu helo. Khamaar in waxta lagu qaado oo la yiraahdo waxaan biluu shaqeynayaa xilli uu kacayo ma ogin, caawa inuu kacayo ma ogin. Kuwaas iyo kuwan wax farqi u dhexeeya ma jirto. Kuwana page-kooda aad boqoraysaa, linkiga mar walba aad taabato ama aad u dirtid iyagu faa'iidooyin fara badan baa ugu dhacaysa, faa'iidadina kula wadaagi ma iyaga uma qaadanaya. Marka dadka Soomaalida waxaan leeyahay waa in laga feejignaada mar walba, waayo dadku way noo tashadeen inagoo awalba wadankeennii iska jiray qalalaase, foodo iyo dowlad la'aan iyo waqti adag oo lagu jiro wadankii uu ku jiro doorasho iyo waxyaabahaas lagu mashquulsan yahay. Haddana dunidii wada aragtaa sida ay noogu tashadeen kuwii lacagyooga hayay China baa maanta inagii wax naga raadinaya. Inagoo maanta shidaalkeeni iyo barwaaqadeeni baa ay dhulka weli dhex fadhiyaan ka soo saareen. Qof walba uu ku shaqeeyo wixii isagu xoogiisa iyo maalkiisa uu ku soo saartay. Marka waa in laga feejignaada mar walba waxyaabahan soo gelaya. Wax walba horta dad abis gelaysidna waxa ugu fiican horta marka koowaad ee aad gelaysid waxa weeye waa in dadka ugu horeeya. Haddii aad noqotid meel dhex iyo meel dambe waa lagula kacayaa. Waa in dantii lahaa markii la gaaray aad un bay kula kacaysaa. Marka CJ on Style iyo abisyada faraha badan ee aad ku yaacasaan mar walba iska ilaaliya. Waayo waxa fiican inaad meel kale qarashkiina aad gelisaan si ay kaga soo baxdo faa'iidooyin joogta. Waxaana jira horta lacagyo inta badan la maal gashto, marka kuwaas in aad gashaan baa idin qurux badan.
idiinna wanaagsan. Siege on still hadda dad fara badan oo dhalinyaro ah, dad fara badan oo waaweyn, dad ganacsataa intaba way ku jabeen, waayo muxuu ahaayey si aad ay ugu yaaceen muddadii ugu dambeysay. Kuwa malaayiin dhigay, kuwa 200 dhigay, kuwa 5,000 dhigay, kuwa muxuu ahaayey 3,000 dhigay, kuwa muxuu ahaayey 8,000 dhigay, kuwa 10 dhigay, kuwa wax yaryar dhigay. Dee waxaad weligii haddaad tijaabinaysna lacag yar oo kooban baa lagu tijaabiyaa. Laguma tijaabiyo wixii aad haysay ama wixii aad haysay kala badh. Waayo waa inaad wixii waxaad ka samri kartid ama beri ka maalin haddii ay kaa tagaan maxay tahay ilaawi kartid ay tahay. Laakiin markay kaa tagto lacag aad u fara badan, dee wax muxuu ahaayey maaha aad ilaawi kartid, waa wax nabar kuga ah oo aad shaqaynaysay adigoo dhalinyaro ah oo aan maanta meel kale iyo ciirsi kale aysan kuu jirin. Haddana waxaa si yaroo fudud lagaga qaatay. Waxaa qurux badan in aadan ku degdegin oo aadan markiiba gelin muxuu ahaayey bahalkii waxyaabahaas. Marka waxay ku qurux badan tahay wax walba in muxuu ahaayey aad marka hore iska hubisaan, aadna marka hore iska eegtaan. Asxaabta waxaan leeyahay horta like-ta, share-ta, subscribe-ta intaba ku yaaciya si aan dhiiranaan uga qaadno inkuna nagu shafra. Waxay Soomaalida inta badan waynu isku adkaynaa subscribe waxa mahas walaalka bad meel gaarsiisay isna bari meel buu ka gaarsiinaya. Haddii isku wada saarno like-ta iyo share-ta iyo waxaba dee views-ka intaba hadda isku saarno waayo kana wax u helaya kana wax u helaya ma hadda wax mid kaliya la siinaya dad u soo horeeyay ama haddii ay sunaano heer baad gaadhay dadkii kala deysan heer kula gaarin oo adiga uun kaliya waa in aad faa'iida dee dunida markaad eegtid waxa ugu fara badan ee isticmaala muxuu ahaayey Hindi, Pakistani, Asiaanka aad ugu fara badan iyo wadamada Yurubta waa aragtaa malaayiin subscribe ay haystaan, malaayiin views waayo waa la soo kiciyaa kor baa la soo qaadaa. Inay maanta waxaan maleynayaa haddii Soomaalida ugu badato 30 milyan kama badna. Sida lagu qiyaasayo 30 milyan hadduu mid walba mid kale uu u saaro dee waxay noqonaysaa wax qurux badan bay noqonaysaa. Marka ay isku dhiirigelino si aynu isku soo kicin lahayn aynu uga shaqayn lahayn YouTube-ka waayo waxyaabaha lagu shaqaystay ugu fiican isagana waa idin soo gelin doonaa waxyaabo fara badan oo kala duwan waa idin soo gelin doonaa. Awal filimaan kaliya iiga barateen laakiin hadda waan badinayaa. Idinkana waxaan jeclahay inaad like-ta, share-ta, subscribe-ta intaba aad ku yaacisaan. Wabillahi tawfiiq. Ahbaabi.